magaca ugu horeeyo oo alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay qur-aankana aada loogu sheegay qof kastana uu yaqaan cunuga yar oo 2 jirka iyo 3 jirka uu yaqaan qofka soo muslimo oo isla markii ku dhawaaqi karo waa magaca Allah way qur-aanka wuxuu ku soo arooray 2395 jeer kelimada ama magaca alle subxaanahu wa tacaala xaraf kasta haddii laga gooyo si gooni ah u soo arooray مثلا الله هذه ألف لقويه لله وصارت لله ما في السماوات والأرض هذه لقويه لام كاسكالي له ما في السماوات والأرض هذه لقويه أنت كالي هو أنت صلوا كسر أررتي أي مقع الله سبحانه وتعالى هو الله كلمة لا إله إلا الله وأنا الشهادة أن إسلام كسر الله oo islaamnimada waxa way lagu galo waa kalimatu Allah wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah magaca alle waa Allahna abuurtay weey waa ismul a'zam bay ku magacaabeen culimada qaar yani ismka ama magaca ugu weyn ayaa lagu magacaabay kalimatu Allah ama magaca Allah ismullah wa ism jalil azim weyn oo u baahan in la xurmeeyo oo hadii ay timaado dhaarta in aad iska ilaaliso magaca alle ciyaar looguma dhaarto wallahi wa billahi wa tallahi ku soo arortay quraanka tallahi ya soo arortay billahi ya soo arortay wallahi marka intaas oo dhan in la ilaaliyo magaca alle xurmad buu leeyahay ilaahu baan allahna badbaadi allah waxaas ayaan ka doonayaa maxanu waxa weeye waa magaciisa oo mar kasta la soo noqdo oo alle subxaanahu wa tacaala magaciisa aadamka ah sida culimada qaar ay yiraahdeen wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu waxa weeye ma jiro shay illa alle subxaanahu wa tacaala tasbiihsadaan buuraha geedaha xayawaanada kale aad arkaysid waxa weeye diiqa qaylinaya subaxii quraanjada marayso kalluunka badda ku sugan dhamaan ilaahay bay u tasbiixsanayaan oo waxay leeyihiin subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha ila allah sidee marka u diidi karnaa alle awoodiisa iyo alle subxaanahu wa tacaala inuu khaaliq yahay mudabbiru lumuur yahay seen u raacnaa shaydaanka iyo kuwa shayaadiinta raaca iyo kuwa yiraahda ilaahay ma jiro ama ilaahay wax la wadaajiya tawxiidun allah subxaanahu wa tacaala وحنا توحيدنا الله سبحانه وتعالى في صفاته يا أسمائه أيا وحوي آمن سنه في ألوهيته في ربوبيته الله سبحانه وتعالى إنه يهي إله معبود ككلية لا عبده إله سبحانه وتعالى في ربوبيته إنه رب يهي أو وحنا أن أبوري وأسأل خالق يهي أيا إنه آمن سنه أنت صلى قفك إنه آمن له بهاي أو مقع الله قلبك يسأكوين هذا markii alle ka baq lagu yiraahdo inaad tiraado alla ayaan ka baqaya inay kula weynaato markii alle laga hadlayo in waxa weeye alle kula weynaado quraanka marka la akhrinayo wada qura alquran fastami'u lahu wansitu inaad aamusto oo aad dhageysato markii lagu yiraahdo ya ayyuha alladhina aamanu kuwiina alle subhanahu wa ta'ala rumayo waxaan iska daaya ama waxaan sameeya inaad hoggaansato ya ayyuha alladhina aamanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasul ilaahi adeeca rasuulkana adeeca tilka hududullah tuma wa hudud alle subhanahu wa ta'ala hadaafi markii lagu yiraahdo magaca alle inuu qalbigaada ku weeyaan loo baahayaa qalbigaada ku weynaado عظمadiisa ku weynaanayso haddii alle subxaana wa tacaala aa weynayso alle waa jeclaanaysaa haddii alle aad jeclaato asagana waa ku jeclaanayaa hadduu ku jeclaado maxaad kale u baahan tahay إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك هذا إلهي كل جرو أو حاضرته وحاول يكون دمينايو يا كهر استهيكره يا وحاول كهر إيمان كره بل محي أذيك كادي بيسا هذه تذكر كردان أيكم معارضان لكن إلهي كل جرو لكن إذا كان الله عليك هذه الله سبحانه وتعالى أد حدود إيسا قدبته والله سبحانه وتعالى تكون عاسسه وحمانته لن أسميسه فمن معك يا كل جرايو أدون كرنا هدي كل جيران وحد رادين يسال لايكس
oo waxaad raadinaysaa follow 100,000 oo qof milyan qof hadday ku soo raacaan oo TikTok laga soo raaco ama laga soo raaco waxa way meelaha kale waxa way bulshada meelaha iskugu yimaadaan oo la yiraahdo hebel 2 milyan oo followers buu haystaa laakiin ay kugu soo raaceen heeso iyo xumaan iyo dambi maxay waxaas ka anfacayaan Allah subhanahu wa ta'ala haddii uu ku careysan yahay magaca alle aan weyneyno ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkiisa aanu badino oo waxa way aan faafino magaciisa guri kasta ha galo kalimatu la ilaha illa allah guri kasta ha gasho oo haddii adigu waxa way aad gaarsiin karto ama qof kale uu gaarsiin karo waa in sidaa loo weyneeyaa taa loolanka xaqa iyo baatilka u dhaxeeyo haddii la weyneeyo alle subxaana wa tacaala baatilka waa yaraanaya ilxaadka waxaad ka mid ah shaydaanka in waxa weeye la adeeco oo sidoo kale dadka shaydaanka u watana xoog la siiyo Europa iyo Amerika iyo meelaha kale dadka waxay u dhamaadeen oo farxad loogu nooleen oo stress ugu badan yahay oo depression u batay iyo suicide dadka inay sidaan u batay waxa laga fogaaday Allah baa laga fogaaday ilaahay weynayntiisa laga fogaaday tawxiidkii baa laga fogaaday kalimatu la ilaha illa Allah ayaa laga fogaaday qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya ومماتي لله رب العالمين أنيقا عبادتي دي صلاة دي قورة عيقا نلوشي دا لمشي دا لله إلهي باله رب العالمين إنا إلهي إسوديبتو أيا لو بهاي والله سبحانه وتعالى قلبي هذا أديبتو والله سبحانه وتعالى أهجانسته مكة تكنيسو نيدا إنا نقطة نيد ونكسن والله سبحانه وتعالى درتي وتكنيسو مركز واحد قمنيسو هي عمل قمنيسو إلهي درتي إنه كان نقطه ونسكي جورة على واحد جورة عيسد شركي إسكا إلالي هبل بايري قبري فلان يا شيخ فلان قبري يسكون جورة عيا يا وحوي سع وحوي دبي مدوبا جورة عيا سع سلاس عن جورة عيا وحصلهم الشركيات عن الله بهنين الذبح لله ونسكي جورة على الله سبحانه وتعالى يا إسكاله كليه الله شاذنا الله له وماتي لما شاذنا الله له وحد نقطة قف الله وهو جانسن إلهي سبحانه وتعالى قو أبورته الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.